الله الرحمن الرحيم maanta waxay ahayd maalinta oo caalamiga oo loogu talagalay gabdhaha waa International Girls Day waxaana ay dhahaan arintan waxay soo bilaabatay muxuu ahaay sanadkii United Nations ka keentay sanadkii markuu ahaay muxuu ahaay 2011 bishii December laakiin waxay hirgashay 11 October oo 2012 muxuu ayaa la hirgeliyay ujeedadana waxa waay gabdhaha adduunka oo dhan gabdhaha yar yar ilaa 18 sano ay ka gaaraan in macnaha gabdhaha waxyaalaha dhiba ama macnaha waxbarashada ku yaraata ama horumarintooda waxyaalaha soo laan adduunka oo dhan ay ka wada shaqeeyaan ujeedada saas ah munaasabadan maanta darteeda waxa soo qaban qaabiyay oo bilahan oo dhan aan ka shaqeynay ururka kulmiyo ururada Soomaaliyeed ee afsan iyo muxuu ahaa qolooyinka caafimaadka caruurta qaabilsan iyo qolooyinka domestic violence ama maaragtay muxuu ahaayay oo la yiraahdo violent house afkaan lagu yiraahdo ayaa saddexdaas urur ayaa soo wada qaban qaabiyay diiradda ugu weyn oo la saaray waxay ahayd dhibaatooyinka guud ahaan gabdhaha yar yar haysta gaar ahaan waxa laga hadlay muxuu ahaayay gudniinka ayaa laga hadlay macnaha tacadiyada ugu waaweyn oo gabdhaha runtii ku dhaca oo yahay shirkan waxa ka soo baxay horta inay dad badan ogaadaan 11 October maxay tahay macnaha ujeedada macnaha inay 11 ay tahay waxa kale ka soo baxay shirkan sidii awalba ahayd in sanadkiiba mar la iskugu yimaado waxaana iskugu imaanay muxuu ahaay dadka oo professionalka ama caafimaadka ka socda ama waxbarashada ka socdaana iyo ururada macnaha muxuu ahaay ajaanibta ah waa arkayda Masar laga yimid Ghana laga yimid Ethiopia laga yimid Eritrea laga yimid Suudaan ayay ahayd waxyaalaha ugu quruxda badnaa ee ahayd dhibaatadaas kaliya laga ma hadlaynin laakiin waxa kaliya inaan ku daro aan rabo wadankaas wuxuu soo saaray dhaqankiisa gaar ahaan macnaha quruxda Afrika dharka ay qaataan Soomaaliba ka qayb gashay Ghana ka qayb gashay Sierra Leone ka qayb gashay waxa ka qayb galay Suudaan ka qayb gashay Eritrea ka qayb gashay macnaha wax kasta macnaha dhibaato in laga hadlo markaas ma wanaagsana laakiin dhinac kale oo fiican oo sida dhaqankeeni iyo dharkeeni macnaha iyo dhaqankeeni ama dharkeeni oo sidaan macnaha oo dhaqanka noo ah ayaa lagu soo bandhigay laakiin midda ugu faa'iido badneed runtii waxay ahayd oo lagu soo gabagabeeyay gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo Sahra Muuse liira oo ka hadashay oo wax kasta ku tijaabida riwaayad ahaan ku dhigtay oo runtii muxuu ahaayay dadka dhan ay ku farxeen annagana maadaama aan Soomaalinahay qof Soomaalida ka muuqdo oo barnaamijkaas dhan weyn oo sameysay waliba iyadoo ku hadlaysa afkii macnaha Nederlandiga aad iyo aad ayaan ugu faraxnay qaybta weyn ee ka qaadanay haddaan gaar ahaan Soomaalida deganaay Holland macnaha fariinta aniga marar badan aan ka hadlay haddana waa ku celinayaa waxa macnaha arintaas waa arin noo taala iraahdaa annaga gaar ahaan waalidiinta dadka Soomaaliyeed macnaha dadka Afrikaanka laakiin gaar ahaan maadaama aniga aan Soomaali ahay percentage-kana ama marka Soomaalka la soo dhigo waa aragteen annaga number 1 aan taaganahay adduunka ayaan ugu badannahay sidaa daraadeed wax qof shakhsi oo sameyn kara ma ahan aniga waxaan leeyahay aan ku celinaya aan dhihi doonaa waxa waay dadka Soomaaliyeed ee arintan u taala inay ayaga ka wada shaqeystaan arintan waa caado gabowday in macnaha la joojiyo waalidkana asaga mas'uulka ah ilmihiisa inuu macnaha arintan macnaha foosh xun oo gabowday in laga joojiyo gabdhaha taas ayaan ku talanaa waa mahadsantiin haddaan tihiin SNTV